annagoo ah ururka walaaleeye in badanna ka soo shaqaynay waxtarka nabadaynta degmada Celifweyn. Koobkan maanta aynu furayno insha Allah waxaan ka soo qaadanay xubin weyn annagoo la kulanay wasiirka ciyaaraha iyo sportska ee Somaliland kana soo qaadnay 8 dirays oo aanu iminka halkan ku wareejin doono gudoomiyaha sportska ee degmada Celifweyn annagoo ah ururka isdhexgalka iyo dhalinyarada ee walaaleeye ee degmada Celifweyn. waxaan insha Allah dhalinyarada iyo degmadaba ku boorinaynaa inuu Ilaahay naga qaaday dhibkii iyo waxyaabihii aynu soo maray. waxaanu doonaynaa 24 dhalinyarada ka mid oo inama ah inaanu ku wareejino wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulaha iyo maamul ku-xigeenka haddii Ilaahay raalli ka noqdo annagoo gacanta ku hayna anagu mar walba haddana inay naga caawiyaan xagga dirayska iyo xagga kubadda. waxaan isugu nimid garoonkan inaan dhammaan aan ciyaalka iyo ayaan ku wareejino carruur yaryar gudoomiyaha ciyaaraha Isxaaq Cabdilaahi Aadan oo noo furay garoonkan ka ballan qaadayna inaan u furayno xafiiskii dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha degmada Celifweyn. koobkan waa koobkii eeda waxa ku xiga koobkii waaweynka oo isaguna 4 kooxood kana waa 4 kooxood 8 kooxood baan hadda isdhaafina 8 kooxood kadib baan qabanaynaa koobkii biida. maanta waxaan bartan ka furay koobka isdhexgalka dhalinyarada degmada Celifweyn oo loogu magac daray koobka isdhexgalka dhalinyarada degmada Celifweyn walaaleeye. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa dhalinyarada isku duuban ee ururka walaaleeye iyo dalada samawade oo sidoo kale iyagu nagu wareejin doona dhawaan akaadamiyad ama ciyaal aad u yaryar oo la barbaarinayo. maalintan insha Allah taala waxaan jecelahay inaan wasaaradda iyo ciday kastoo ay qusayso aan la wadaagno wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka gudoomiyaha xidhiidhka iyo wasaaradda ciyaaraha ee degmadaba aad baan uga mahad celinaynaa. sidoo kale dhalinyaradii ka soo shaqaysay inuu koobkani qabsoomo ururka walaaleeye iyagana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa maamul ahaan. waxa kale oo aan u mahad celinaynaa oo iyagana aan mahad celin gaara siinaynaa dalada samawada oo runtii waxa weeye hadday tahay nabadgelyada degmada iyo isdhexgalka bulshada aad uga shaqaysa haddana sida ay sheegeen gacanta ku haysa dhalinyarada magaalada oo hablo iyo wiilal oo qaarkoodna ay u sameeyaan madadaalo kuwa kalena ay baraan xirfado kala duwan iyagana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. runtii annaguna wixii karaankayaga waanu kala qayb qaadanaynaa. cid kastoo ka soo qayb gashay furitaanka wareegan iyo cid kasta oo ka soo shaqaysay oo ay ugu horeyso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waanu si gaar ah ugu mahad celinayna wasiirka runtii koobkan inuu suuro galo ka shaqeeyey runtii taabalna geliyey iyo agaasimaha guudba. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulaha iyo maamul ku-xigeenka oo ah rag dhalinyaraha oo raggii sportiga ahaa degmada ah oo runtii maanta nasiib u helay in ay degmadoodii mas'uuliyiinta ka noqdaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. aad baan u bogaadinayaa waxaana insha Allahu biidnillaahi kariim aan rajeynayna wax badan ka qaban doonaan xagga isdhexgalka dhalinyarada iyo sportiga inay kor u soo qaadi doonaan runtii ayaan rajeynayaa. waa niman khibradeeda iyo waayaragnimadeeda leh. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ururka walaaleeye oo runtii isagu qayb ka ahaa inuu qabsoomo koobkani oo wasiirka iyagoo ula tegay in koobka isdhexgalka la qabto wasiirkuna uu ka aqbalay codsigoodii iyo barnaamijkoodii iyo qaabkii wuxuu qaban lahaayeen u gudbiyey maantana inay rumowdo aynu wada joogno. ururkaana runtii aad baan ugu mahad celinayaa. ururku sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa nabadaynta isdhexgalka dhalinyarada iyo sportiga intaba wuu ka shaqeeyaa iyagana waa bogaadinaynaa.